haweenaydii sannado badan aamusnayd ayaa ugu dambayn qaraxday. Waxay si geesinimo leh uga hor istaagtay aabbaha. Waxay u sheegtay inuu joojiyo ku qasbidda carruurta inay ku noolaadaan riyooyinkiisa. Dhammaan murugadii iyo culayskii ay sannado badan qalbiga ku haysay ayaa maalintaas soo baxay. Qoyska oo dhan ayaa markii ugu horraysay si daacad ah uga hadlay dareenkooda. Maalmo yar kadib Sayaka waxay la kulantay walaalkeed. Waxay isku dayday inay dhiirigeliso. Laakiin walaalkii ayaa si qadhaadh ugu yidhi. Adiguna sow ma aadan quusan. Dadka anaga oo kale ah dadaalkoodu waxba ma beddelo. Hadalladaas ayaa si qoto dheer u taabtay Sayaka. Waxay si lama filaan ah uga dhex aragtay walaalkeed sawirkii nafteeda ee maalmo ka hor. Waxay garwaaqsatay in haddii ay hadda quusato ay caddaynayso in hadalladaasi run yihiin. Habeenkaas ayay go'aan cusub qaadatay. Waxay go'aansatay inay mar kale istaagto. In kasta oo ay cabsi qabto. In kasta oo ay daashay. In kasta oo ayan hubin inay guulaysan doonto. Waxay go'aansatay inay dagaalka sii wado ilaa dhammaadka. Sababtoo ah markii ugu horraysay nolosheeda waxay haysatay riyo ay si dhab ah u rabto inay gaarto. Maalintii xigtay hooyadeed waxay Sayaka ula safartay Tokyo si ay ugu soo bandhigto jaamacadda Keio indhaheeda. Waxay rabtay inay gabadheeda tusiso meesha ay sannadaha oo dhan u dagaalamayso. Markii ay dhex socotay xarunta jaamacadda Sayaka waxay aragtay arday badan oo kalsooni leh, firfircoon, isla markaana u muuqda kuwa himilooyin waaweyn leh. Jawiga goobta ayaa qalbigeeda ku reebay dareen cusub. Riyadii ay ku sigatay inay ka tanaasusho ayaa mar kale dib u noolaatay. Hooyadeed waxay soo jeedisay inay sawir ku qaataan albaabka jaamacadda. Laakiin Sayaka way diiday. Waxay tidhi, maalinta aan arday ka noqdo ayaan halkan sawir ku geli doonaa. Markii ay guriga ku noqotay waxay si toos ah ugu laabatay xaruntii casharada. Waxay la kulantay Hirata iyadoo wejigeeda ka muuqato go'aan cusub. Waxay u sheegtay inay sii wadi doonto dagaalka ilaa daqiiqada ugu dambaysa. Hirata aad ayuu ugu farxay. Wuxuu ogaaday in ardaygiisii uu mar kale helay kalsoonidii uu luminayay. Muddo yar kadib waxaa la qabtay imtixaankii afraad ee tijaabada ahaa. Natiijooyinkii markan way ka duwanaayeen kuwii hore. Markii Hirata furay warqaddii natiijada wejigiisa waxaa ka muuqday farxad. Sayaka dhibcaheedu si weyn ayay kor ugu kaceen. Iyadoo warqaddii gacanta ku haysa ayay guriga ku oroday. Markii ay gaartay guriga waxay aragtay aabbaheed oo bannaanka taagan. Wuxuu gubayay qalabkii basabalka ee uu sannado badan ku riyoon jiray. Ma ahayn xanaaq. Waxay ahayd calaamad uu ku aqbalayo xaqiiqda. Wuxuu ugu dambayn go'aansaday inuusan wiilkiisa ku qasbi doonin riyo aanu isagu lahayn. Markii uu arkay warqadda natiijada ee Sayaka muddo ayuu aamusan ku eegayay. Kadibna markii ugu horraysay si dhab ah ayuu ugu fiirsaday gabadhiisa. Waxay ahayd markii ugu horraysay ee uu fahmo inta ay dadaashay. 2 bilood oo keliya ayaa ka harsanaa imtixaankii ugu weynaa. Sayaka waxay gashay marxaladdii ugu dambaysay ee diyaar garowga. Qolkeedu habeen iyo maalin iftiin ayuu ahaa. Waxay wax akhrinaysay ilaa ay indhaheedu daalaan. Maalintii imtixaanka ayaa timid. Laakiin nasiib darro baraf culus ayaa daay. Tareenadii ardayda qaadi lahaa way istaageen. Sayaka waxay ka walwalsanayd inay imtixaanka ka daahdo. Xilligaas aabbaheed ayaa si lama filaan ah u yidhi. Aniga ayaa ku geynaya. Sayaka way yaabtay. Sababtoo ah tani waxay ahayd markii ugu horraysay ee aabbaheed sidaas ugu muujiyo taageero. Intii ay jidka ku jireen Sayaka waxay aragtay aabbaheed oo dadka kale caawinaya. Markaas ayay fahamtay in hooyadeed sax ahayd. Aabbaheed qalbi wanaagsan ayuu lahaa laakiin weligiis ma aqoon sida dareenkiisa loo muujiyo. Markii ay gaareen albaabka goobta imtixaanka aabbaheed ayaa cod dheer ugu dhawaaqay. Samee intii karaankaaga ah. Ereyadaas yar waxay Sayaka siisay awood weyn. Imtixaankii ugu horreeyay si fiican ayuu ugu dhacay. Waxay ku guulaysatay jaamacad kale oo ay u dooratay kayd ahaan. Laakiin hadafkeedu weli wuxuu ahaa Keio. Maalintii ugu dambaysay ee xarunta casharada Sayaka waxay Hirata siisay warqad mahadnaq ah. Hirata isaguna wuxuu siiyey qasacad qaxwo ah oo lagu tilmaamo qaxwaha guusha. Wuxuu u rajeeyay inay ka gudubto caqabad kasta. Laakiin maalintii imtixaanka jaamacadda Keio arrin aan la filayn ayaa dhacday. Markii ay qaxwihii cabtay caloosheedu si daran ayay u xanuuntay. Waxay marar badan u kala orday qolka imtixaanka iyo musqusha. Labadii maado ee ay ugu fiicnayd Ingiriisiga iyo taariikhda si wanaagsan uma aysan gelin. Markii ay baxday waxay hubtay inay fashilantay. Laakiin weli waxaa haray imtixaankii kulliyadda siyaasadda guud. Markan waxay xasuusatay dhammaan talooyinkii Hirata. Waxay si degan uga jawaabtay su'aal kasta. Kadib waxaa bilaabmay sugitaankii ugu adkaa. Maalintii natiijada la shaacinayay Sayaka waxay fadhiisatay kombiyuutarka hortiisa. Gacmaheedu way gariirayeen. Waxay gelisay lambarkeedii. Indhaha ayay isku qabatay. Neefteedana way celisay. Kadib si tartiib ah ayay u furtay natiijada. Daqiiqad yar ayay aamustay. Kadib way gudubtay. Way ku guulaysatay gelitaanka jaamacadda Keio. Qof kasta oo ag joogay farxad ayuu la qayliyey. Hirata xitaa hadal ma heli karin farxadda darteed. Hooyadeed ilmo farxad ah ayay la dhacday. Aabbaheedna markii uu maqlay warka aad ayuu ugu farxay. Xitaa macallinkii hore ee ku jeesjeesay wuxuu qirtay inuu qaldanaa. Maalintii qalinjabinta Sayaka waxay ogaatay in guushaasi aysan ahayn mid iyada keliya u gaara. Waxay ahayd guusha hooyadeed oo aan weligeed ka quusan. Waxay ahayd guusha Hirata oo mar walba ku kalsoonaa. Waxay ahayd guusha qoyskeeda iyo saaxiibadeed. Maalintii ay guriga ka tegaysay si ay jaamacadda ugu biirto waxay mar kale dhabarka uga booday aabbaheed sidii iyadoo yar. Aabbaheedna si degan ayuu u qaaday. Markii tareenku dhaqaaqay Sayaka waxay furtay warqaddii uu Hirata u qoray. Warqadda waxaa ku qornaa. Waxaad ma sheegtay inaan noloshaada bedelay. Laakiin xaqiiqdu waxay tahay in dadaalkaaga uu bedelay nolosha dad badan. Mar kasta oo aad la kulanto caqabad xasuuso inaad tahay qof geesi u ahaa inuu raaco riyadiisa. Taasi keliya ayaa ku filan. Sayaka iyadoo daaqadda ka eegaysa ayay aragtay Hirata oo bannaanka taagan gacantiisana kor u taagaya. Qoraxda ayaa ku dhacaysay wejigiisa. Waxayna garwaaqsatay hal xaqiiqo. Dunidan wax aan macquul ahayn ma jiraan haddii qofku diyaar u yahay inuu dadaal dhab ah bixiyo.